sanad cajiib waxyaabo fara badan dhaceen dee sanadadii hore handaraab baynu iska odhan jirnay handaraabkii rasmiga sanadkan waa magaraa sanadka imika dhammaaday waxyaabo fara badanna adduunka way ka dhaceenoo waxaa ugu magaranaysa ugu muhiimsanaa handaraabkii weynaa ee dhacay covid-19 ku sabab sidoo kale haddii aynu xagga soomaalida soo noqonno waxyaabo fara badan oo lagu qoslaa ka dhacay heesuha ugu qosol badnaadaan heestii iga waaloo kale dee layska waalayay iyo heestii faraha badnaa ee sharmaboy iyo taataabo iyo timta faraha gelgeli iyo heesaha faraha badan baan ayaan ku xasuustaa yaxye maxamed yaasiinow sanadkii 2020 dhaafay waxyaabihii kugu qosolka badnaa ama kugu saamaynta badnaa maxaad ka xasuustay tinaag baa laba su'aalood weydiisay waxay ku tiri sanadka waxaan doonayay inaan isguursano kowdhe taana wangarin way waxaan ku jawaab kowdhe intaan qosolku washan ku dhimay aabin soo weydiinaa bal xilligu inoo qorsheeyay waaye magacaaga xasan maxamed Axmed xasan maxamed axmedow sanadka 2020 dhamaaday wax ma ka xasuustaa dhacdooyinka kugu qosolka badnaa waxaan ka xasuustaa inaan jeclayd oo qisada la yaaba markaa maxaad fariin u diraysaa inta ku jecel qisada la yaabka nariix maray waxaan fariin u diray walaal artaad magacaaga ma dishay magacayga waan ku sheegi doonaa Cabdiraxmaan baa la dhahdaa iyada fariin u diriyada inantii fariin maxamed fariin jecel baan diray waa yaa diiwaan ku diray walaal salaam aad diyaarkiisa dad maqla sibda salaam dad ma hasantaa adigu insha khayr baan ku rajeynaa magacaaga saxaabada walaal Cabdikariin Ali Xuseen cabdikariin cali xuseen oo sanadka 2020 dhaafay wuxuu sanad dhacdooyin badan huwanaa qosol farxad xaraabo murugeentaba maxaad ka xasuutaa iyo anigu wixii igu la yaabka badnaa labadii dumar ee Muqdisho isku guursaday labadaasaan igu la yaab badnaa wax iska doonay aanu garan maayo kullee labada sanadka waxaasan ku xasuusan doonaa insha Allah waxa ku yaab badnaa labada dumar ee Muqdisho baraha bulshada aad ka soo dhex muuqday inkasta markii ay raali gelin bixiyaan dana dhacdo la yaab laba haydo baraha bulshada saameyn ku leh marka adiga ka taasa kugu saameyn badnay aad iyo iska dooneen wala raadin doona aad iyo aad ma sanad insha Allah magacaagu Axmed Saciid Reedan axmedow sanadka 2020 galbaday maxaad ku xasuutaa waxaan ka xasuustaa dee ninkii igu darnaa waa ninkan dee habeenkii cashada wada la'ayn ee wargalisay intuu laba cashaar gisay kaga maqnaa yuuri qamar sugan iman kama fanaan baa noqdo igu jooga magaalada taas ay igu la yaab badnay wax xisaab soo qaado wax xisaab soo qaadaan ma arag wuxuu ila yimi isagu weeyaa magacaaga saxaabada cabdinaasir axmed oo sanadka 2020 dhamaaday maxaad ku xasuutaa waxaan ka xasuustaa igu soo wadnaa dee markii gaarigu ila dhacay aan wuxuu noqon waayay igu la yaabka badnaa midba ilaahay ka saaray midba uu noqon waayay haddana waxaan ku socdaa haddana wuxuu noqon waayay taasaad ku xasuutaa adigu ilaahay baa ka soo tabixiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin khayr badan ku rajayna saaxiib magacaaga sax walaal waxa la Muxiidiin Ibraahim Muxiidiin sanadka 2020 dhamaaday maxaad ku xasuutaa waxaan ku xasuustaa fartumal walaal waan ku xasuustaa waliba hab sanadkaas sanadkii fartumal walaal soo baxdu haayo gabigiisba baadhaan buu haneeyo iskargaraac iyo wax buu haayo gabigiisba barihi bulshada fartumal walaal ka haystay marka sanadkana fartumal walaal ka soo baxdo ma doonadii maxaa kuwaas khayr baan awleynaa qaar ka khayr insha Allah tacaala fan iyo suugaan bal ay soo baxaan aad iyo aad nood mahadsantahay insha Allah maxamed Ciise maxamed sanadka 2020 dhamaaday waxyaabihii kugu saameynta badan waxaad ka xasuutaa maaniga anigu kulli waxa saameynaa kama qabato dhacdooyinkii dhacay caalamka dhacay qosolka lahaa haday heesatahay haday majaajilad haday dhacdooyin caalamka maxaad ka xasuutaa anigu waxa ugu la yaab badan heestii iga waal oo ninka gaamayo iyo gabadhii kabadhka ka qaadeen labadaas taasay ugu la yaab badnaan aad iyo aad baan ku rajaynaa khayr badan sanadka cusub ku rajaynaa insha Allah maasanta magaca waxa la dhaaliyaa cawl cilmi sulub cawl cilmiyo sanadka tagay 2020 maxaad ku xasuutaa waxaan ka xasuustaa hees baa igu yaab badnayd heestii aad iga waal inta faraha gelgeli iga waal heestaa ka xasuustaa kuwaasaan kugu saameyn badnaa khayr badan ku rajaynaa insha Allah magacaaga sax maxamed Cabdullaahi wiil maxay Cabdullaahi sanadka 2020 dhamaaday maxaad ka xasuustaa dhacdooyinkii maankaaga ku sawiran aad ilaawi doon waxaan ka xasuustaa walaal coronavirus-kii oo dunida qanqiir galiyay waxaan xasuustaa kale koobkii gobolada Soomaaliland iyo nin lambaas la yiraahdo in qabsada ayaami hore macal gobolka digada ka dhigay intaas oo badan baa wax badan baa tagay oo aan halkan ku xusi karayno way jiraan waa saas aad iyo aad mahadsantahay khayr badan ku rajaynaa sanadka cusub insha Allah magacaaga saxaada ku bilaabay maxamed deeq ibraahim maxamed deeq oo sanadka 2020 dhacdooyinka maankaaga ku sawiran ee qosolka farxadda la yaabka intaba leh maxaad ka xasuutaa waxaan ka xasuustaa dagaalkii tukaraq ka dhacay
weelaabta dagaalkii tukaraq baan xasuustaa anu ya wax kale ma xasuusta iyo waxaan xasuustaa qamar sugaan iyo dhan waan imanayaa burco ka in labadaas ma xasuustaa dhacdooyinkii koobka maxaad ka xasuusta dhacdooyinkii koobka deniyow waxaan ka xasuustaa dhacdadii dee lambaaso ku dhacday nimanka haddaad madhoor ku sameeyeen tiifiga qarankuna khalad weyn buu goolka ka galay dee hagaajaan odhan laynta aad iyo aad u mahadsan insha Allah maxaad ka xasuusta wallaahi waxyaalo badan baan ku xasuustaa niyo horta mid wax ku xasuustaa tii ciyaaraha ahayd oo dee waxa niyo nin baa ciyaarayay la yiri 3 jir baa iyo guji wax lagu sheegayay ninka waa ku xasuustaa niyo kubaddu ciyaarayay lambaasana waa ku xasuustaa niyo ninkaas si loo galay niyo waa ka xumaay niyo waan taageerano ha ma garanays no mid kale ku xasuustaa niyo no Soomaaliya wax la yiri dee wax ka socda ciyaaro no ciyaaro wala naaga walwala inta saa xijaabka u laabta surwaal qura ku soo galiyay niyo iyo qaarinta shabagii lagu ciyaarayay ugu soo boodaan saa u ruuxaya si wax walwala niyo no dhacdooyinkaas oo dhan baa ku xasuustaa niyo sanadkaasi gas buu agabiisu agaga si karooniyo hayna garanin buu leeyahay kadambana khayr buu rajayna khayr niyo iyo aad iyo aad u mahadsan insha Allah magacaaga saxan magacayga Mustafa Ibrahim Salaam Arbala Mustafa sanadkii tagay 2020 waxyaabo maanka ku suntan maxaad ka xasuusta sanadkii 2020kii horta ilaahay khayrkiisana siiyo una dhaafee kan dambe cusub aan suganay ilaahay khayrkiisa ana siiyo sanadkii hore aan dhaafay waxaan ka xasuusanaa dee waxyaabo fara badan dalka ku soo kordhiyay caalamka oo dhan dee maaha dalka kaliya maaha caalamka oo dhan xanuunkan coronavirus la yaabo oo dad badan galaaftay inaga Soomaaliland ilaahay inaga yarad laakiin ilaahay inaga dhaafiyay wali ilaahay ma kadana soconayo jira oo nooc kale isu bedelay taasa koowaad waa kale waxaan ka xasuusanaa in nimcooyinka ilaahay inoo farbadiyo roob fara badan oo nimco fara badan aynu helay ayaan ka xasuusanaa intaasaan garanaya aad iyo aad u mahadsantahay khayr ku rajayna insha Allah maxaad ka xasuusta yaar waxaan ka xasuustaa karooni markii la dhacay wax lagu yiri mi aad tanaar wax lagu yiri digada nin kori kare ma ahayd waan ka dhaco lidkan raacay aad iyo aad u mahadsantahay Amiir Ahmed Xuseen wala Amiir Ahmed Xuseen sanadka 2020 galbaday maxaad ka xasuustaa dhacdooyinkii maanka ku suntan ama qosol ama farxad ama murug ama naxdin bala kanidayga mu xishoon ba sanadkanide wallahi wax kulay daad waxyaabo badan naxdin le ayuu sameeyay waxa kamid ahaa dee arooskayga iga baaqdayba iga mu xishooniba saasa kamid ahay aad iyo aad u mahadsantahay kadib waxaan rajaynayaa arooska soo dhaco khayr noqoto insha Allah wadayaal waxaan gudaha kaga jirnaa barnaamijkeennii sanadka cusub iyo su'aalaha burco haatan waxa garabkayga taagan mid kale oo kamid ah ka qayb qaatayaasha barnaamijka halkaad nagala socotana waa Ayatiin Drama TV fadlan dad ku cusubtay channelka nagu soo biirtay subscribe like share and comment wad mahadsantahay magacaaga saxan walaal magacaygu waa Amiir Maxamed Cali Amiiro sanadka 2020 dhaafay dhacdooyinka maanka ku suntan maxaad ka xasuustaa waxaan ku xasuustaa waxyaabo badan wallahi kawre waxa horta ka kowa coronavirus waxa ku xiga ayax waxa ku xiga xanuuno dhacay abaaro aniga si gaar ahaan uu sameeyay horta oo wasaarad bay iga hadhaweyday sanadka 12 biloodba ku shil jabkayga ma soo gelin baahi baan noqday kawre waxyaabo kale oo badan baa jira xagga heesaha maxaad ka xasuustaa heesigu saamaynta badnaa dee wallahi 900 sanadkan wala sugay bil walba hees qarxda la sugay sanadkii qarxidu ahaa sanadkii soo wada qarxiyay waxa kamid ah heesaha aan arko dee ilmada haw qabin xasuusta soo garan iyo heeso badan oo kale soo garan ila waalo kale iga wal baa jirtay xaggii gobolada ciyaari maxaad ka xasuustaa dee waraynaad waan ka murugooda wallahi ciyaari gobol markii ugu horeysay baan ismacnayna la dhibi deetana gobolka ragga markii ugu horeysay waa la haray ciyaar leerar baa helay gobolka ragga niyo soo garan sanadkan niyo iska murugo la yimi gobolka ragga niyo ya kadamba waxaan rajaynayaa nasr iyo khayr u sugnaan insha Allah kadamba wanaagsan insha Allah iyo inaynu sanadka dambe koobka soo dhigno halkan aad iyo aad u mahadsantahay insha Allah waa yahay magacaaga sax roodo xirsi warsame rooday sanadka 2020 dhaafay maxaad ka xasuustaa dhacdooyinka maanka ku siitay waxaan ku xasuustaa horta wixii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa maalintii goolhayihii madaxa lagaga dhuftay gobolka Sool ta xigtay aan ku xasuustaa waxa weeye hadalkii shalay toole Muuse Biixi madaxweyne Muuse Biixi oo uu ku simbiriirixday oo goboladii bariga caayay sidaa ay nabadgelyo aad iyo aad u mahadsantahay ya qalbi jira maxaa jira cabdi ya qulida dadka way sanadka 2020 dhamaad maxaad ku xasuustaa wallahi sanadka 2020ka wax badan baan ka xasuusnaa sanadka khamiis wata waha sina deem kanaysa wasaarada waxaan ka xasuustaa horta sanadkan ku sitay wayaan guursado kawde hadda sitay weeyay laakiin waxaan ka xasuustaa ciyaartoygii horta ku sitay falka labaster la oran jiray labaster waxaan ka xasuustaa
dee way badnaa wallah haa xagga heesaa maxaad ka xasuustaa yaa xagga heesaa waxaan ka xasuustaa heesta cusbeed Mustafa Dollar qaaday yaa heblo waa la guursaday guri caawa yeelatayaa ilaahay noo sheeg waa insha Allah khayr baan ku rajaynaa ka cusub insha Allah weli waxaan daawadayaal gudaha kaga jirnaa barnaamijka su'aalaha iyo sanadka cusub waxaana garabka ku sugan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Burco iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijkaas magacaaga wasta aadan maxamed baa la dhahaa walaal aadan oo sanadka 2020 dhaafay dhacdooyinka maanka ku suntaan aad ilaawo maxaa kamid dee waxa kamid ah meel ilaawi karaaba wareegii la furay gobolada Soomaaliland ayaa dee kamid ahaa lagu xasuusanaya dee waxyaabo kale oo aad u fara badan ilaahay khayr nasiyo intaan ka badan amiin maasanta waa yahay magacaaga wasta sidaysu walaal sidaysu sanadka 2020 dhaafay maxaad ku xasuustay waxaan ku xasuustay walaal sanadkii hore qaaqbo sanadkan cusub baan rajaynaya inuu wax wanaagsan ilaahay nooga dhigo ma jirtaa dhacdaad si gaar ah xasuusta ama qosol badan ama haa maalin baan ka xasuustaa waxa habloon la soo maray aniga iyo waxaan nahay mid jigar la yiraahdo laba habloodoo iyo mahuuran oo aragnay dee dabeetana adigu jacayl bayna la bilaabeen ka bacdina markii jeel bayna gaarsiiyeen kuwaasna noogu la yaab dhacdada muhiimada la soo wari dhacdada jeelku baa kugu haa jeelka igu xasuus badnayd iguna xumayd wixii sanadee soo maraba sanadka quraatay aan weliga ilaawin taasoo ah inaan dee intaan adduunka ugu jeclaayo dee lamaanahay inuu sacafinay yaa waana sanad aan dee xusi karo murugo iyo dhibba aniga intaas igu suntanba aanay ilaawi karin magacaaga wasta magacayga amiin maxamed ciise amiinoo sanadka 2020 galbaday maxaad ku xasuustaa sanadkan 2020 waxaan ku xasuustaa arday jaamacadeed oo aan weli qalbigay ka go'ila markaan ereyadii ku soo qoray biijkiisa akhriyay waxa u dhigneed sida tan wuxuu lahaa hooyo isagoo hooyadii markaa u hambalyeynaya waxaan ka soo qalin jabiyey jaamacaddii waxaanan kuliyaddaydii baan ugu sarreeyey markaa waxaan hooyo hadiyadu helay billad dahaba iyo buug dahaba markaa hooyo ma qabrigaagii ayaan geeyaa buuggii mise buulkeennii yaraa aniga waxba ilamaa hal maalin iyo 2 maalin inaan sii eego billadda yar laakiin waxa iga qiimo badan hooyo dee billadda dahabkaa ee aan guntay adaan kuu keen lahay markaa eryadaasaa igu murugo badnaa intaan waa tahay daawadayaal guud ahaanba waxaan intaaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii sanadka cusub iyo su'aalaha ood kala socoteen ayatiin drama TV waxaana dadweynaha magaalada Burco ku weydiinaynay waxyaabaha ay ka xasuustaan sanadkii tagay ee 2020 waxaana bixiyeen jawaabaha aad soo daawateen fadlan dad ku cusubtay channelkayga aad ku soo biirtay subscribe like share and comment si aad uga mid noqoto in ku dhow 20,000 oo ku taxan channelka ayatiin drama TV tan iyo intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waa anigoo Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Kibisteri Sayid Maxamuud Macallin Cabdullaahi Sayid Qorax iyo waliba sidoo kale Jamaal Habane oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh isma dhaafno nooli kulantee